بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan dib u bilaabaynaa silsiladeena junuudu ibliis, gaar ahaan qaybtii kufriyaadkii cabdulqaadir kishki. waxaan filayaa muddo bil dhan baan ismoogeyn duruufiya mashquul jiray dartood. haddii dadka ku dheeraatay waan ka cudur daaranayaa. kelmaddayda hadda waxay ku saabsan tahay hordhac. hordhacaasi tii horena gunaanad buu yahay, ta soo socotana bilow buu yahay. waxaan rabaa 5 qodob inaan kaga hadlo kelimadan kooban ee daqiiqadahan idinla wadaagayo. qodobka koobaad, mas'aladii Jacd ibn Dirham iyo kishkii waxaad ila soo daawateen, horeyna u soo wada aragno u soo dhammaynay inuu beeniyey qowlahu tacaala wa kallama allahu muusaa takliiman. ilaahay muuse wuu la hadlay, hadal ilaahay ma maqale, makhluuq la abuuray oo geed lagu abuuray buu maqlay inuu yidhi waa ila soo daawateen, waa ila soo dhegaysateen. waxay culimmadu ka yidhaahdeen iyo ijmaac inay kufri tahay, iyadana waa ila soo aragteen. ku celceliska uu ku celcelinayo waxaan ku gaalooba hala ii sheego, iska yeelyeel iyo isgeeda marin wey. qof walba waa caddahay, waana garanayaa, laakiin wuxuu rabaa inuu sawir bixiyo ah. weli la iima qeexin anigu waxaan ku gaaloobay shakhsi haddaana. waxaan rabaa inaan idhaahdo kufriga mujmac calayhiga ee qur-aanka beenintiisa aad caddaysatood ku dhawaaqday. waxaanan doonayaa mar labaad inaa idin xasuusiyo hadalka uu yidhi waxaa weeye muuse wixii uu maqlay hadalkii ilaahay ma ahayn, wixii la hadlayena allah ma ahayn, makhluuq baa la hadlayey oo ilaahnimo u sheegtay oo uu ka aqbalay nabi muuse oo uu rumaystay oo amarkiisii u yeelay. hadalkaasi wuxuu noqonayaa macnihiisu qur-aankii ammaanay iyo nebi maxamedna muusoo makhluuq caabudaya buu ammaanay oo dhiiri geliyey. ani garan maayo kufriga gaalnimo ka weyn oo uu ku dhici lahaa kishka ama uu samayn lahaa. beeninta qur-aankana gaalnimo aan khilaaf ka jirin wey. waxaad igala markhaati tihiin inuu intaana yidhi beeniyey, aanan ugu yeernay inuu towbad keeno, welina uu ku adkaysanayo kufrigii. waxaan rabaa idin taariikhdu markhaati gasho in ninkani kufrigaa uu qirtay, markii towbadkeen la yidhina uu diiday ustutiiba cala alkufri. taariikhda ha gasho. qofkii warwareegayeyna inuu ku adag yahay ha arko. qodobka labaad, jawaabta uu bixin lahaa wuxuu yidhi markii la wada dhammeeyaan ka jawaabi. waxaan filayaa muddo bil ah ku filan wixii uu jawaab bixin lahaa. qayb bayna ka ahayd inaan jaanis waxoogay ah siiyo wixii uu diyaar garoobaya. markii 6 la dhammeeyaan ka jawaabi, wakhti dheer ha qaadato, dadkuna ha halmaamaan, kadibna waxaad rabtaa aad sheegtid weeye, iyadoon la xasuusanin wixii lagugu haystay. daday 6 bilood iyo ka soo wareegtay, ilaan dadku shuqul baa le makhaahul iyo danaa la leeyahay. muddada ay ka soo wareegtay baan dib uga hadlayaa. maan doorin iyo majara habaabin iyo mujtamac dhumin weeye. bil buu haystay, masale walba markay joogtay in la bisleeyo u baahan tahay. hadduu wax isku hadlayo intaa waxunbuu ka hadli lahaa. waadna ogtihiin hadal u dambeeyey oon dhegaystay masaladii maba soo qaadinba. qodobka saddexaan raba inaan wax ka ihahda waxaa weeye wuxuu ka sheegtay erayadiisii qayb ka mid ahaa, dad baan igu daba tukanin. waxaan rabaa inaa idhaha dadkaa way saxan yihiin. inay kugu daba tukadaanna maaha, inay kugu dul tukadaan adoo dhintayna maaha. nin qur-aanka ilaahay beeninaya, qur-aankii lagu tukanayana waa makhluuq lahoo kalaamka ilaahay inuu yahay diidan, see lagu daba tukan karaa? dad muslim oo qur-aanka rumaysan, ilaahayna muuse inuu la hadlay rumaysan, iyo cid rumaysan rabbi aan ahayn kii muuse la hadlay, iskumana daba tukan karaan, iskumana dul tukan karaan.
in lagu daba tukadana maaha in lagu dul tukadana maaha gaar ahaan adigooba diidan gaalnimadii inaad ka toobadkeento ku adkaysanaya waxaan rabaa inaan idhaahdo dadkaasi waa saxan yihiin inta kale ay kugu daba tukanaysana ilaahay ha ka baqaan ha iska daayaan salaada ninka ay ku daba tukanayaan iyo wixii lamida qodobka afraad aan raba inaan tilmaamo waxaa weeye waxaa kala duwan qofka nusuusta inkira ee beeniya iyo qofka qirsanee ogol ee sibaa looga jeedaa kale leh masalada waxay la xiriirtaa masalada soo socoteen ka hadlayo in badan uu dalbaday oo ku celceliyo xuduud iyo rajmi iyo ku celceliyey isagoo kelimad u dambaysa aan ka dhagaystay wixiina dhex maray qoraalka inuu ka been sheegay oo xuduudda keliya uu ka soo qaaday qoraalladii wa minhaa ka mid ahayd kaliibyadeeda u diray qadarka iyo sunnada caydeedana uusan dadka u sheegin inuu wada sheegaa ku fiicnayd maadaama aan u diray xataa kaliibyadiisii videogaha marka waxaan rabaa inaan idhahdo waa la inkiray oo waa la beeniyey sida asaariqada iyo nidaamiyada iyo muntasandiqiintan malaaxidada ee cadnaan ibraahim iyo kishki oo kaleeto waa mas'alo sida dadka qaarkii insaxad laga soo tabiyey oo iyagoo ogol inuu sharcigu sidaa yahay sharcigu sidaa ogolaa ay masale si kale la noqotayna waa mas'alo kale inkaarka waa la diiday waa kufri ta'wiilkana qofkii ahal u ah baa laga aqbalaa maaha caamo kishki oo kaleeto ku talaacubaysa diinta maaha waxba kala garanayn qodobka shanaad ee ugu dambeeya aan raba inaan kanu hordhacayaan kusoo gabagabeeyey waxaa weeye markii laga hadlayo nin caalim ah bay zalla ka dhacday oo khayr iyo wanaag lahaa iyo markii mid mutasatir oo mutasandiqa uu ku soo gabbado isku mid maaha isku sina loola mucaamilo nabigu wuxuu xaatib bin abi baltaca markii qisadii fatxu maka uu sameeyey nabigu waa la cafiyey maxaa loogu dhaafay likownihi min ahli lfadli uu yahay oo badriya xadiidka caaisha iyo jamaaca min asaxaaba laga wariyey ay culamo badan tasiixiyeen walow qaar daciifiya ay jiraanna wuxuu aqiilu dhawi lhayaati catharaatihim dadka qiimaha iyo wanaagga iyo sharafka leh wixii ka dhacay yar turturoodaan ha loo cafiyo markii sidaa la yidhi xadiidkaa waxaa laga fahmayaa xadiidka xaatibna laga garanayaa ninkii markiisii horeba diin xumada lahaa sida kashki oo kale ka shaqaynaya waxaa xun dadka inuu ugu yeero gaalada ha lala ciido heesaha ha lala tunto gadhka ha lala xiiro saxaabadu diintay beddeleen sunnada duritaankeeda waxa xun ka shaqayntiisa iyo xumaha fidinteeda iyo diinta dhalangadiskeeda lagu yaqiinay waa dad isku qarinaya sida cadnaan ibraahim xataa rabbi baan ka nabadgelin subxaanahu wa tacaala haddii loo baahdo ay mudato waan arki doonaa isagoo ilaahay uunkan u abuuray xataa ku dhaliilayoo le ilaahay abuurku abuuray ceebuu leeyahay waxyaabo aan macno lahayn buu ku sameeyey isagoo leh baan keenaynaa haddii loo baahdana lagu kalifo kuwa malaaxidada iyo mulxidiintan oo kaleeto maaha cudurdaar male weligoo munaafiq muslimiintuna way ashahaadan jireen way ku badbaadi jireen munaafiqiintuna ilahay wuxuu yidhi ittakhaduu aymaanahum junnatan way ku gaban jireen ku gabashadii weeye nimankan malaaxidadan cusub ee raggani ay ka mid ka yihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo gunaanadka kelimadda ereygan dadkii hore inkiray oo ahaa asaariqada iyo nidaamiyada muctasilada ka midka ah saynu faahfaahinta ugu tegi doonno laba asal bay ku saleeyeen inkirka mas'alada rajmigeen ka hadli doonno masalada koowaad saxaabadoo la takfiiriyey ruwaadda ahaa ama la tafsiiqiyey bay ahayd oo asaariqaduna waxay qabeen walaa cali walaa cuhmaan walaa saxaabadii dhammaan inay gaala yihiin bay qabeen oo ruwaaddii warisay gaaleeyeen muctasilada qaybta nidaamiyada ahna laga soo bilaabo maalintii jamal talxa caaisha ninka la yidhaahdo zubayr cali ilaa cuhmaan ay gaarsiiyeen ilaa saxaabada kaleoo dhan bay bayna alkufri waalfisqi geliyeen qaarkoodna waxay dhahan labada daa'ifo mid baa faasiqiina ma kala garanayna saa darteed shahaadadoo dhanba iyo riwaayadu marduuda waa si gaaraan asaariqada iyo uga hadli doonaa nidaamiyada
iyo dadka inkiree muctasilada la sheegaya inay nidaamiyada yihiin waxay qabeen iyo culummadu waxay ka dhaheen inay labadooduba saa darteed gaaloobeen baan ka hadli doonaa aqwaasha culimadana waa keeni doonaa marka nimankani waxay isku mabda' yihiin nimankii saxaabada caayayey tafsiiqinayey tuhmayey kashkina waad aragteen marar badan inuu yidhaah haddii loo badan oo soo bandhigayna isagoo video saxaabadu intay diin dhalagediya ka shaqeeyeen oy diin yuhuud hoosgeliyeen oo israa'iiliya dadka diin iyo caqiida uga dhigeen marka raggu raggii weeye laakiin waa laydiin gabanayaa asalka labaad ay ku salaysnayd dadkii xuduudda inkiri jiray hore waxay ahayd guud ahaan gaar ahaan kuwan hadda jooga xuquuqul insaanka iyo mabaadida raxmadda iyo lama socon kartaa dhowr iyo toddobaatameyadii laynoo keenay kacaanadii iyo hanti wadaaggii cilmiyeysnaa iyo wakhtigaas ilxaadku saasuu ku yimid markay fashilantay baa shaatigan cusub diinta ka mida loo soo geliyey shaatigan cusub ee diinta ka mida waxaa loo soo geliyey tii horaa fashilantay xamladii lagu qaaday tuludkii rubca la nasakhay xuduuddu caqliga ma geli karta lama yidhi casriga lama socon karta la yidhi walidaalika kishki wuxuu ka soo guurinayaa waxaan oo dhan cadnaan ibraahimna si sariixa wuxuu u leeyahay cad oon gabasho lahayn in xuduudda rajmi baa dhagax lagu dilayaa iyo la yidhaahdo raxmaddii islaamka iyo casrigan horumarkaa lama socon karto waa nafsi mas'aladii weeye munaafiqiintii shalay caddaysanaysay uma maanta shaati soo xiratay insha allahu tacaala xalaqadan intaasaan ku gabagabayn xalaqada xigta waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala axaadiidu rajmi inay mutawaatir tahay kowdhe mutawaatirnimadeedu inay ijmaac tahay laba dheh 3 codsigiisii ahaa casiiz ha la keeno iyadoo mutawaatirka yaalla casiiskana waa u keenaynaa ilaa iyo xalaqada dambe intaa waxaan kaga tegayaa nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu